السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش قيمة قائلة ميل بونغي داونيسان halkani waa barnaamijkeeni dunida Soomaalida oo nooga barateen maar walba inay ku soo gudbino wararka marka ugu xiiso badan dunida Soomaalida. barnaamijkeena maanta waxa marti noogu ah Maxamed Cabdullaahi oo ah siyaasi aqoon-yahana oo aad ula socda xaaladda deegaanka Jubbaland. waxaan maanta ka waraysan doonaa khilaafyadii ugu dambeeyay ee u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland taasoo la sheegayo in khilaafkaas oo marar badan soo noqnoqday mar labaad uu jiro khilaaf u dhaxeeya dawladda iyo maamulka Jubbaland. Maxamed Cabdullaahi ku soo dhawow barnaamijka dunida Soomaalida. waa dhawaay khaliif aad iyo aad baan ku salaamay adiga iyo warbaahinta dunida Soomaalida runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah ma garanaysaa adigu marti qaadeen barnaamijka waana dhawahay khaliif. Thank you. ugu horeyn anagoo mar labaad kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaligeedna soo siisay fursadan qaaliga si aad nooga warbixiso xaalka u dhaxeeya khilaafka u dhaxeeya dawladda Jubbaland iyo maamulka federaalka ee Soomaaliya. waxaad warbixin naga siisaa khilaafkan ugu dambeeyay ee soo cusboonaaday muxuu yahay muxuu ka kacay muxuu yahay ma noo macnayn kartaa? waa mahadsan tahay khaliif runtii waa su'aal aad u muhiim ah su'aal muhiim weeyaan waana halka ay sarta ka qurunsan tahay weeyaan su'aashaas meesha ay ku qotanto runtii waxa weeyaan khilaafkan u dambeeyay maadaama aynu ka warhayno khilaafyo badan oo soo noqnoqday oo hore inay jireen kuwaas dib uguma noqonayno laakiin currently waqtiga hadda la taagan yahay ee xaadirka ah khilaafkan soo hadda taagan miiska saaran wuxuu ku saabsan yahay electionka la doonayay in loo dareero ama la galo doorashadii inagu soo aadanayd 2021 oo runtii ma garanaysaa aad moodo in heshiiskii ugu dambeeyay ee Muqdisho lagu go'aamiyay in doorasho la aado communique ka soo baxay isla gaareen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaad moodaysaa qodob aan aad loo qeexin ayaa saameyn ku yeeshay Jubbaland kaasoo ah in la go'aamiyay doorashadu inay ka dhacdo state walba laba magaalo madaxda iyo magaalada ku xigta saadaradeed waxaa la go'aamiyay Jubbaland inay electionku uu ka dhaco magaalada Kismaayo oo xarunta ku meel gaarka ah iyo caasimadda labaad ee gobolka Gado ee Garbaharey. saadaradeed laguma darin heshiiskii hore in Jubbaland inta aan electionka la gelin ama hawsha electionka aan la gelin in marka hore gacanta Jubbaland lagu soo celiyo. waqtigan waxaan ka warhaynaa in Jubbaland aynan ka arriminin gobolka Gado intiisa badan oo caasimad ay u tahay magaalada madax ay u tahay Garbaharey kuma jirto gacanta ama arrimiso Jubbaland. saadaradeed
maadaama aynan hadda ka talinin oo ciidamo dowladda federaalka ah iyo maamul dowladda federaalka ee soo magacowday ay joogaan Jubbaland waxay ka biididsan tahay in si electionkii ay u hoostigarayso ay u qabato in hawsheedii loo madax baneeyo marka halka dowladda federaalkana ay ku xisaabtamayso in electionkaas garbaharey ka dhacaya ay qabtaan mataqaanaa maamulkaas dowladda federaalku ay horey usoo magacowday iyo ciidamadaas SNA-da ay ka amar qaata dowladda federaalka marka halkaas ayay khaliifow sartu ka quransan tahay Jubbalandna waxay doonaysaa ama madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxa uu mowqifkiisu waxa uu yahay in labada magaalo ee electionku ay ka dhacayaan inay yihiin laba magaalo oo asaga uu ka arrimiyo ama maamulkiisa ay ka arrimiyaan sida maamulada kaleba ay yihiin waayo maamulada kaleba laba magaalo ayay ka dhacayaan waxaana gacanta ku haya isla isteediyadaas ayaa maamulaya marka halkan waxaa moodaa Jubbaland maamulkii doorashadeeda inuu naafo yahay halkaas la isku haystaa waxayna sartu ka qorantay markii hore communique-gii ugu dambeeyay ee heshiiskii Muqdisho ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay soo saarayeen qodobka galbaharey si specifically looma qeexin maxamed hadda waxaa socdaa hay'adaha kala duwan ee beesha caalamku waxay isku dayayaan inay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland isu soo dhaweeyaan maxaa ugu dambeeyay oo dhacaya ma wax shirara loo qabtay baa jira si isfaham waagaas loo xaliyo runtii dadaaladu way badan yihiin waxaana jira trial badan ama isku dayo ayaa jira la doonayo in arrintan lagu xaliyo saa la socotaba beesha caalamka ama daneeyayaasha Soomaaliya kaalin weyn bay ka qaataan in arrimaha Soomaaliya geed socodkooda kaalin weyn iyo door muhiim ayay ku leeyihiin saa la socotid ba maalmihii dhaweeyto waxay kulamo la lahaayeen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni runtii islana qaateen kulamo waxaad moodaysay waxyaalaha qaar inay iska afkarteen sidaas si lamid ah ayaa waxaa la rajaynayaa in ay soo gaaraan maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan caasimadiisa ku meel gaarka Kismaayo si ay kulamo oo la qaataan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayna ugu qanciyaan in ma garanaysaa khilaafaadka la xaliyo la isuna soo jiido isaga iyo dowladda federaalka marka waa la filayaa dadaaladaas beesha caalamka qaybaheeda kala duwan hadday xafiiska qaramada midoobay ahaan lahayd midowga Yurub iyo mataqaanaa dalalka kale daneeyaasha Soomaaliya inay maalmahan footi nagu soo haya ay yimaadaan magaalada Kismaayo si ay ugala xaajoodaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam sidii doorashada ogol ah loo aadi lahaa marka rajada way jirtaa inkasta oo khilaafku uu hadda uu cirka isku shareersan yahay ama khilaafku hadda meel kulul marayo laakiin dadaalka beesha caalamka waa la rajaynayaa maxamed cabdullaahi maxaan ku ognahay maamulka Jubbaland maxay rabaan inay maaragtay maxay ku qanci karaan oo u arkaan inay xalka yahay maamulka Jubbaland waxay u arkaan xalku inuu yahay runtii inkasta oo mid waxay kala siman yihiin waxa major u ah horta laba qodob ayaa major u ah waxa ay diidan yihiin labada qodobna mid ayaa si ahmiyad weyn Jubbaland u sii leh midna waxay kala siman yihiin Soomaali weyn aan kala qaado marka midka majorka u sii ah Jubbaland waxa weeyaan madax banaan ama wada idlaanta gacan ku haynta deegaanada xorta ee Jubbaland khaasatan gobolka Gado iyo gobolada intiisa kale inay is wada raacsan yihiin oo Jubbaland ay ka wada arrimiso isla mar ahaantaasna doorashada ka wada dhacaysa ay guddiga heer state oo kaashanaya guddiga heer qaran inay sida doorashadu ku dhacdo oo ay doorashadu noqoto mid ay maamulayso Jubbaland una madax bannaan tahay levelka ay xaqa u leedahay inay iyadu maamusho marka gobolka Gado in khaasatan magaaladan ay ka dhici lahayd doorashada ee Garbaharey inay gacanta dowladda Jubbaland dib ugu soo noqoto isla mar ahaantaasna ciidamadan SNA-da ee meesha jooga oo laga warhayo inay ciidamadaas ay ku yimaadeen hanaan siyaasadeed ama khilaaf siyaasadeed inay ku yimaadeen in meesha laga saaro Jubbaland kaas ay ku qanci kartaa ama waxa la dhihi karaa qodobka ugu muhiimsan ay ku dararayso waa midka isaga midka kaleeto ee labaad ee soo raaca waxa weeyaan dhaliisha ka jirta habraaca doorashada ee heer federaal
ku saabsan guddigii uu soo magacaabay guddigii ay dowladda dhexe ama dowladda federaalka ee soo magacowday ee u soo magacowday heer qaran ee doorasho guddigaas oo la dhaliilsan yahay xubnaha ay ka kooban yihiin oo loo aaneynaya inay ku badan yihiin dad dowladda u shaqeeya dad ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka taas dhaliishaasna way tabanaysaa Jubbaland laakiin waxay kala siman tahay ummadda Soomaaliyeed bal waxa ugu daran waxa weeyaan gobolka Gado oo gacanteeda ka maqan oo dowladda federaalka inta badan ay gacanta ku hayso iyo magaalada Garbaharey oo la doonayo Jubbaland inay halka doorasho ku qabato marka saadaradeed isma qaadan karta inay doorashada ku qabato meeshina maamul ayada hoos yimaado una ka talin marka Jubbaland shuruudda ay ku xireyso doorashada waxa weeyaan in qodobka la xalliyo weeyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda federaalka ciidanka ay u soo dirtay gobolka Gedo ujeedada ay ugu soo dirtay ee rasmiga maxay ahayd ma inay maamulka Jubbaland ay kala jebiyaan ma inay xuduudka xiraan ujeedkooda rasmiga muxuu ahaa horta madaxweynaha sababta uu ciidan intuu soo diray gobolka Gedo keenay oo uu deegaanada kala ciidan u geeyay fine waa su'aal aad u wanaagsan Khaliif waa maadsan tahay waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed in loo bidhaamiyo ku habboon weeyaan saa la socotaba waxa weeyaan waxaa jiray nidaamka dowladda federaalka ay in dhaweydba waddanka ku soo maamuleysay wuxuu ahaa nidaam ay ku doonaysay dowladda federaalka inay isteediyada intooda badan yaan dhehne isteediyada say u dhan yihiinba inay isbeddel ku samayso waxaan ka warhaynaa inay dowladda federaalka ay isbeddel ku samaysay maamulkii ka arriminayay galmudug inay isbeddel ku samaysay maamulkii ka arriminayay southwest inay isbeddel ku samaysay maamulkii ka arriminayay hirshabelle iyo inay in badan isku dayday oo khilaafkaasuna uu gacan ka hadal iyo nooc walba uu soo maray Jubbaland ay doonaysay muddo dheerba inay isbeddel maamul ay halkaa ku samayso marka dowladda Soomaaliya oo ay hanaankeeda ay u hanqal taagaysay inay dalka intiisa badan ama dalka dhammaan inta horta ee gacanta lagu hayo inay ka arrimiyaan maamulla ayada favor u ah ama ku dhow ama ay yacni inay ay kaalin weyn ku leedahay sida ay maamuladaas u samaysmayaan ayay dowladda federaalka hadafkeeda ahayd si marka intii badan way ku guuleysatay waxaa ku adkaaday beddelkii ay beddeli lahayd maamulka Jubbaland ee uu ka arriminayay Axmed Maxamed Islaan saa daraadeed dowladda federaalka waxay qaadatay inay ku xalliso hanaan awood sheegashaha ama gacan ka hadal ah saa daraadeed waxa ay dowladda federaalka qaadatay go'aano ah inay ciidamo soo rarto ciidamo ay soo daabusho gobolka Gado ka soo dejiso ciidanka Jubbaland ee meesha ka arriminayay laga soo saaro maamulka Jubbaland ee meesha deganaa laga saaro maamul ayadu ay soo magacowdo marka ciidanka waxay ku yimaadeen haddaan nuxurka jawaabtaas aan bixiyay waxay ku yimaadeen Jubbaland dowladda federaalka oo Jubbaland isbeddel inay ku samayso doonaysay hanaan ku dhisan military ama qaab awood ah waxa weeye ma la isdhihi karaa maamulka Jubbaland waynu aragnay dowladda federaalka Soomaaliyeed Puntland ma farageliso doorashadooda maamulkooda iyo xildhibaanadoodaba waxa kaloo ognahay maamul goboleedyada kale inayna u weerarin siday u weerarto maamulka Jubbaland ma la dhihi karaa dulduleelo iyo habacsanaan ku jirta maamulka Jubbaland ayaa wuxuu muujinayaa in maaragtay jaanis jiro meeshan in la faragelin karo okay fine su'aal fiican weeyaan Khaliif waa maasan tahay runtii Jubbaland strategically markii iyo geographically marka la fiiriyo Jubbaland way ka duwan tahay dowlad goboleedyada intooda badan way ka duwan tahay maxaa yeelay Jubbaland horta zonka ay ka dhisan tahay waa zone civil war markuu dhacay dagaalada inta badan ay ku badnaayeen isla mar ahaantaasna Jubbaland waa state-ka kaliya ay yani
4.5 ka Soomaaliyeed ay wada degaan oo qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dhan baa ku idil sidaa daraadeed dagaaladii soo jireenka ahaa oo dhanna waa ay ku badnaayeen oo muqdisho marka laga soo tago meesha labaad ee kusoo xigta ee dalka ee dagaaladu inta badan ay kusoo noqnoqonayeen kana dhacayeen ayay ahayd marka waa meel xasaasiyadeedu ay very sensitive ay tahay oo isla markiiba isku dhacyo ay ka abuurmi karaan yacni ay ka abuurmi karaan mataqaanay falal ammaan darro ah haddii khilaaf siyaasi ah uu yimaado marka waa meel aad sensitive u ah runtii ma dhihi karna habaxsanaan kulley habaxsanaan dalka Soomaaliyeed oo dhan way ka jirtaa oo dadaal fara badan oo Jubbaland ay soo samaysay oo maamul dhisid ah iyo mataqaanaa waa ay soo jireen dhaliilana way iska jiri karayaan laakiin waxa ugu wacan nuxurka ah ayaa wuxuu yahay inay meesha tan ay ku idil yihiin 4.5 ka Soomaaliyeed inay ku wada idil yihiin waxayna u baahan tahay nabadda iyo reconciliationkaas meesha ka jira iyo hanaanka institutionska ah ee yagleelka ah cusub waxay u baahan tahay in dhidabada loo aasay isla mar ahaantaasna heer federaal iyo heer dowlad goboleedba la adkeeyo amnigaas iyo bulshada Soomaaliyeed wada noolaanshaheeda marka haddii khilaaf dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedku uu soo cusboonaado u yimaado markiiba arrintu sensitive bay noqonaysaa waayo meesha waxaa degan qabaa'ilo kala duwan oo ka kooban qabaa'ilada Soomaaliyeed halka Puntland oo kaleeto South West oo kaleeto dad isku reer ah ayaa degan oo khaas ah meeshana dad kala duwan oo Soomaaliyeed oo 30 sano isu soo leeynay oo u baahan kabkab in maaragtay la isku talo ayaa degan taasaa keenaysa in mar walba mataqaanay halkaas ay noqon karto meel maaragtay khilaafkeedu uu faraha fiidooda u yahay doorashadii dowladda federaalka ee Soomaaliya waqtigeedii aad iyo aad ay u soo dhawaaday waxaan u malaysaa saacadan inaan muran iyo ciidamo rarid aan laga gaari karin maxaad is leedahay marka waqtigan yarka ah waa la qaban karaa ama dowladda federaalka inay ku dhaqaaqdaan looga baahan yahay maamulka Jubbaland inuu ku dhaqaaqa ayaa looga baahan yahay isleedahay fine good question su'aal aad u fiican waay khaliif horta waxaa loo baahan yahay waqtigan xaadirka ah ummadda Soomaaliyeed in loo damqado wadankana loo turo ayaa loo baahan yahay bisaylna la muujiyo sidaa daraadeed labada dhinacba waxaa looga baahan yahay inay bisayl siyaasadeed ay muujiyaan ayagoo ka damqanaya shacabkooda Soomaaliyeed marka aan ku hormaro Jubbaland oo kaleeto waxaa looga baahan yahay Jubbaland oo kaleeto saa sheegtay hadda in ciidamo la raro maamul meel laga kaxeeyo maamul kaleeto lagu soo wareejiyo waqtigiina uu isku raayo way jirtaa laakiin option kaleeto oo la qaadan karo ayaa jirta deegaano kale oo waxaa jira isla gobolka Gada ka tirsan oo Jubbaland ay hadda gacanta ku hayso sida degmada Ceelwaaq oo kaleeto marka haddii la isla garto kale in electionka ka dhacay Jubbaland ay laba magaalo ka dhacaan sida Kismaayo iyo Ceelwaaq oo kaleeto oo ay markaas guddigii dowlad goboleedka guddigii doorashada ee heer dowlad goboleed ay halkaas ka faction gareyn karaan oo shaqadooda ay ka operate gareyn karaan wadan karaanna taas waa xal baan is oran karayaa Jubbalandna ay ku qanci lahayd haddii runtii fursadaas la siiyo dhinaca kale waxaa loo baahan yahay Jubbalandna iyo hoggaankeedu inay bisayl muujiyaan isla mar ahaantaasna inay doorasho dalka Soomaaliya ka qabsoomi weyso inaynan eersanin Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan ayaa loo baahan yahay oo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan nabadoonnimo iyo odaynimo oo muujiyo haddii ay jiraan dhaliilo ka muuqda habraaca doorashada ee heer federaal runtii si maaragtay mangal ah oo la isu dhimrinayo in dowladda federaalka iyo asagu uga wada hadlaan guddiga oo doorashada haddii ay dhaliilsan yihiin xubno ka mid ah ama qaybo ka mid ah ay dhaliilsan yihiin in la bedeli karo oo ama waxaanan diidanahay ay dhahaan si miyir qabta ay u soo jeediyaan dowladda federaalkana ay muujiso bisayl siyaasadeed waxaa saaran mas'uuliyad ka duwan midda dowlad goboleedka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble waxaa looga baahan yahay inay bisayl muujiyaan waayo ayagu mas'uuliyiinta heer qaran weeyaan waxaana laga doonayaa isku haynta wadanka inay ayaga had iyo kor ay isa saaraan marka
marka hadda khilaaf uu ka taagan yahay Jubbaland oo kaleeto hiiraan oo kaleeto aad arkayso waxyaalaha ka dhacaya iyo rabshadaha iyo dagaalada iyo waxa ka soo cusboonaaday oo salka ku haya habkii loo aasaasay ama loo sameeyey maamulkii Hirshabelle hadda u dambeeyey khilaafka ka taagan markaad fiirisid musharaxiinta midowga musharaxiinta Soomaaliyeed ee Muqdisho jooga ayagana oo maaragtay runtii wax badan ka biididsan waxaasoo dhan marka waxaa mas'uuliyadeeda la doonayaa oo aabbihii hooye ka ah oo bisayl inay muujiyaan la doonayaa madaxda heer qaran madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa la doonayaa inay isku haynta waddanka iyo in doorasho la aado iyo doorasho wada ogol ah inay dhacdo waxaa la doonayaa mas'uuliyadda inta badan ay is saaraan marka sidaas ayaan isleeyahay Khaliifow khilaafkan waa lagu xallin karaa in Jubbaland loo ogolaado laba magaalo inay ku qabsan karto sida Kismaayo iyo Ceelwaq dowladda federaalkan haddii lagu dhaliilsan yahay guddigan ay soo dhistay inay maamul goboleedyada ay caddeeyaan oo ay dhahaan waxaan iyo waxaan hana laga bedelo sidaasaa fiicnaan lahayd in si Soomaalinimo ah loogu wada hadlo iyada oo dalka iyo dadka loo turay waxa weeye maalin dhaweyto waxaa maqlaynay arrin soo yeedhaysay oo ahayd in maaragtay safiirkii Kenya waddankiisii lagu celiyey safiirkii dowladda Soomaaliya Nairobi u fadhiyeyna xamar looga yeedhay arrinta iyada maxay salka ku haysay maxaad kala socotaa runtii Khaliif way jirtaa arrintaas in dowladda Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii dowladda Kenya safiirkeedana lagu wargeliyay inuu dalkiisa la tashi la soo sameeyo sida dowladda Soomaaliya ay hadalka u dhigtay ama ku cadeysay dowladda Soomaaliya waxay cadeysay ama qeexday inayna safiirka Kenya soo eriyin keedana aynan maaragtaa aynan ka soo kaxayn maaragtaa dalkii uu matalayay laakiin ay la tashi ugu yeeratay kana ay la tashi ugu dirtay ayay dowladda Soomaaliya cadeysay hase ahaatee halkaas in is-afgaran waa siyaasadeed uu ka jiro lama inkiri karo wayna caddahay taas marka bidhaamiya ama ka hadlo runtii waxa weeyaan dowladda Kenya waa dowlad runtii daris ah muhiimna u ah dalka Soomaaliyeed iyo regionkaba muhiimka ah waxaana jira runtii labada dal daris wanaag iyo masaaliix aan la inkiri karin oo ka dhaxaysa Khaliif dowladda Soomaaliya waxay ku eedeysay dowladda Kenya waxay ku eedeysay inay faragelin gudaha dalka Soomaaliya ah inay ay Kenya ku hayso taas oo ilaa hadda wasaaradda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya ayna cadeynin faragelinta saxda ah Kenya ay sameysay marka la eego ma aynan ku cadeynin qoraalkeeda kaliya waxay ku koobtay dowladda Kenya faragelin arrimaha gudaha Soomaaliya ayay nagu wadaa taasoo aynan cadeynin marka fiirisid laakiin marka annaga inta aan xogogaalka ka nahay iyo sida ay wax u jiri karaan markaan fiirino runtii arrintaas waxay u badan tahay arrin siyaasadeed oo ku qotonta electionka 2021 oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddii iyo dowladdiisa ay ku awrkacsanayaan doorashadan inagu soo fool leh ayay ku salaysan tahay laakiin ma jirto caddeyn loo hayo dalka Kenya in xadgudub ay ku sameeyeen dalka Soomaaliya markaan laakiin si waaqici ah u hadalnana waxa weeyaan dalka Soomaaliya waa dal ka soo kabanaya dagaal sokeeye isla markaantaasna ku jira hanaan dowlad dhis ah waxaana inta badan arrimihiisa siyaasadda ku lug leh dalal badan oo caalamka ka mid ah marka dowlado badan oo haddii aan meeshin garaya aan carabaabo ay ka mid tahay dowladda Qatar ay ka mid tahay dowladda Turkiya ay ka mid tahay dowladda Ethiopia ay ka mid tahay dowladaha kale ee reer galbeedka daneeyayaasha Soomaaliya ah ay dhammaan arrimihii Soomaaliya kana hadlayaan kuna dhex jiraan dowladdii dariska ahayd ee qaxooti runtii
half million ka mid ah half million dalka Soomaaliyeed ka qaxay ay degan yihiin ummadii Soomaaliyeed 1991 tan iyo markii la soo qaxay ilaa maanta ay degan yihiin aad garanayso ganacsiga ummadda Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada Nairobi aad garanayso fursadaha shaqo iyo kuwa caafimaad iyo kuwa waxbarasho ummadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ka hesho iyo sida labada wadan ay labada shacab ay iskugu baahan yihiin iyo Kenya waxay inoo qabatay tan iyo intii burburku u dhacay dal lagu fududaan karo dalka Kenya aniga oo ma arko isla mar ahaantaasna approachka ay dalka dawladda Soomaaliya ay hadda ay maaragtaa kula dhaqmayso dalka Kenya waxaan qabaa inaynan ahayn approachkii ay naga mudnayd dalka Kenya waayo markaad fiiriso waxaa jirtay haddii aan ku xusuusiyo habeen dhaweyto dagaalka ama dirartii ka dhacaysay dalka Ethiopia ayaa wasiirkeena arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa bartiisa Twitterka ayaa wuxuu soo dhigay mowqifka dawladda Soomaaliya ee ku saabsan maaragtay regionkaas dagaalka ka socda asagoo si asluubaysan oga hadlay yiri ku taliyay in xabadda la joojiyo in khilaafkaasna wada hadal lagu xalliyo dawladda Soomaaliyana ay jeceshahay waddanka Ethiopia in nabad iyo xasilooni ay ka jirto ay dadka walaalahana ay wada hadlaan sidaa ayuu u hadlay sidaas u hadlay ee quruxsan ayaa dawladda Ethiopia ay dhalishay ayna qoonsatay isla markiina waxaa lagaga jawaabay in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya xilka laga qaado waxaad dareemaysaa iyadoo dalka Ethiopia lagu qancinayo marka aad fiirisid in marka Ethiopia qaabkaas loola dhaqmayo ama lagu qancinayo dalka Kenya oo half million ka mid ah ay dhadhaab degan tahay oo qaxootiya ilaa 300,000 ay ka ganacsanayso Nairobi Islii madaxda Soomaaliyeed oo dhanna ay dhammaantood xaasaskooda halkan degan yihiin ciyaalkoodana ay wax ka bartaan ummadda Soomaaliyeed in masaalix badan ay halkan ku qabto in lagu fududaado dalka Kenya waxaan u arkaa inay tahay abaal ka dhac nagamana mudna ayaa qaba محمود رجبلان هداتين إن مارتي دولة كينيا أمانتها آد مرة بدينا عاوز نجرتها صولتي كم هذا ينكروا ضد بدن بحيلين معمل جبلان يا تاجرياشي سبحان الله حب بين حق كينيا يكو كينيا حد بيدا يكون سمعين يسول لقى يابين يكون سمعين ستة خير كلها أما تليكومينيكيشن كقاركود إن مارتي يعني معمل جبلان سير ربع وطلع بقادر خليف horta waa runta way jirtaa arimaas in Jubbaland lagu tuhumo ama lagu eedeeyo way jirtaa laakiin xaqiiqada markaan ku sheego aniga hadda runtii si oo maaragtay Soomaalinimo ah iyo darisnimo ah daris wanaaga oo dalka Kenya fikirka aan ka qabo ama fikirka waaqiciga ah ayaan sharaxay runtii aniga oon si dhinac ah aan arinta uga jawaabin laakiin midan xanta ah waxa weeyaan Khaliif saa oo la socotaba Jubbaland iyo Kenya xuduud dheer ay leeyihiin waxayna had iyo kor sida waaqiciga ee caadiga ah midaan la inkiri karin ayaa jirtaba oo runtii in ummadda Soomaaliyeed ay fahanto ama cid kasta oo regionkan arintiisa ka hadlaysa inay fahanto ay tahay meeshan waxaa jirta dalkan Kenya mar walba waxaa lagaga soo duulaa waddanka Soomaaliya dhinaciisa ayaa lagaga soo duulaa oo mataqaanay ururada nabadiidka iyo dadyoogan kaleeta iyo marka falal amaan darra ayaa kaga yimaada waddanka Kenya wuxuu ku khasban yahay in maamulka ama dawlad goboleedka ka dhisan Jubbaland inuu cilaaqaad wanaagsan la yeesho si labada shacab iyo daris wanaagii wax walba ay jiraan isla markaasna si amniga dalka Kenya laftirkiisa uu u hagaagsanaado wuxuu ku khasban yahay regionkaas maamulka ka jiraya ama dawlad goboleedka ka jiraysa inuu mar walba xiriir iyo cilaaqaad dhow la lahaado taana lama inkiri karo wayna jirtaa balse ma aha mid qarannimada Soomaaliyeed dhaawacaya ama mid ummadda Soomaaliyeed lid ku ah sidaa in loo fasiro ma aha
laakiin waa in dhinaca positive-ka laga fiiriyaa dhinaca wanaagsan laga fiiriyaa wayna tahay runtii macquul maaha in Jubbaland cidda ka arriminaysa ay Kenya yani col la ahaato ama cilaaqaad ayna la lahaan logically sax maaha waxa weeyaan waa daris wanaagsan baa leeyahay masaalixdii labada dhinac baa isku xiran amnigii baa laga wada shaqeynayaa labadii mujtamac ayaa xagga degan marka in saaxiibtinimo ay jirto very logic weeyaan taasna qarannimada Soomaaliyeed waxba uma dhimi kartaan qabaa maxamed cabdullaahi waxaa soo baxay warar soo baxay maanta oo aan xaqiiqdeeda ka warhayn ayaa waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo madaxweynuhu ay ku kala aragti duwanaadeen arrinta ah maamulka Jubbaland doorashadeeda arrinta iyada maxaad xogood ka haysaa runtii Khaliif waa sax waa su'aal fiican weeyaan maalmihii ugu dambeysayba saddexdii cishe hadda u dambeysayba sida aan xogaha wararka aan ku helin naga soo gaaraya Villa Soomaaliya waxa ay noo sheegayaan in ajendaha Jubbaland ku aadan Jubbaland uu miiska saarnaa kaas oo in go'aano lid ku ah Jubbaland in ay dowladda Soomaaliya ay ka qaadato na lagu soo wargelinayay iyadoo oo maaragtay meeshaas meel falaage ay haysato lagu magacaabi rabo isla mar ahaantaasna inayna doorashaba ka dhicin ay dowladda federaalka ay go'aaminayso waxyaalo aan macquul gal ahayn ayaa soo yeeray hase ahaatee wararka sida ay nagu soo gaarayaan waxaa la inoo xaqiijinayaa in kulamadaas ay dhammaan baaqsadeen go'aanadaasna aanan la gaarin iyadoo oo kala qaybsanaan xukuumadda Soomaaliya ay jirto sida aad hadda ku helaysaan wararkana waa ay jirtaa xogta inaa helayno in ra'iisul wasaare Roble uu arrintaas ka biididay isla mar ahaantaasna uu mowqif adag ka istaagay wararka sidaan ku helaynana Roble waxa uu soo jeediyey dhinac positive way ayuu arrintan ka istaagay waxa uu yiri socdaal baan waxaan ku gaaray South West Koonfur Galbeed anigoo oo hanaanka doorashada iyo sida Soomaaliya ay doorasho sax ah uga dhici lahayd kala soo kulmayay maamulkaas wixii dhaliilo jira iyo kala soo hadlay sidaas la mid ah ayaan Kismaayo u tagi karaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo dowlad goboleedka Jubbaland aan maaragtay fadhi ula qaadan karaa ayadoo wixii la isku diidan yahayna si hoose oo miirqab ah looga wada hadli karo ayuu soo jeediyey ra'iisul wasaare Roble ilaa xad wararkana soo gaaray saasi sheegayaan warka marka waxba ka jira aad iyo aad ayaan kaaga mahadinaynaa maxamed cabdullaahi waqtigaaga qaaliga iyo sida aad warbixinta dhinacyada kala duwan taabanaya nooga soo gudbisay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland annagoo rajaynayna kulankeena inuu noqon doono kii ugu dambeeyay rajaynayna mustaqbalka inaan waraysiyo badan xaaladaha Soomaaliya aan ka waraysan doono waad ku mahadsantahay ka soo qaybgalkii iyo ayaad nagala soo qayb gashay waraysigan aad iyo aad sidoo kale aad baan idinka mahad celinayaa fursaddan qaaliga aad siiseen maaragtay adigu martiqaadeen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa insha Allah markii koobaad ee arrimahaas aan iska waraysanana ma noqon doonto insha Allah waan ku xirnaan doonaa warbaahintan marka sidaa daraaddeed aad iyo aad baan maamulka iyo shaqaalaha warbaahintaba aad baan u salaamayaa thank you daawadayaasha qiimaha qayaale barnaamijkeennii maanta dunida Soomaalida oo aan ku soo qaadanay khilaafka u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka intaas ku yeey barnaamijku waxa idin soo gudbinay anigoo ah Khaliif Cabdi Cali intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono inta ay nabadgeliyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh